maraykanku isaga anoo furaashkayga yaraayo aqalkii hooyaday iska dhex jeefa iga soo dhex qaato halkan keenay sidee maraykanku wuu iri this boy is our to come to the American sidoo yiri weyn su'aasha isweydiinaysiin ma garatay ilaa iyo ku dhawaad $20,000 shakhsigii la gelinayo lacag gaaraysa sida dalkan maraykanka lagu keeno dimii suurta gali laheen haddaan xeeraankii 2 sano ka hor cagaha boodhka lahaayay xaafadaha miiska qaadka miiska jaadka dul fadhiyay haddaan haan lahaa mii suurta gali laheen gabadh walaashay oo hibaaq oo halkan aadan uga salaamayo safaaradda ka shaqeysa ayaa 2 sano ka hor anigii hurdo nolosha ka yaabano 2 cisho YouTube-ki wax soo dhigan oo yaaban isoo qaraacday hello congratulations is your time together to the America ma karta sadba mise bas waa loo raacaya no xeeraanka kartoonka dul fadhiyay maalin ismu orande Hollywood baa dhex tagi doonta maalin ismu oran Miami Beach ma garatay ayaa ma garatay siyaasadahan ku koray iyo badii Iran Djibouti ay la fahmiyeen. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. صحابي waxaan rajeenayaa inta ay wada fiican tihiin kulay taatalka ku soo aragteen mowduuca maanta halkan aan u soo fariistay aniga la hadli doono waxa weeyaan Faaraxow sidee ku ibiday United States of America horta sidee ku timid halkan waa loo yara gambiyaa ma garatay laakiin anigu de social media ku biiro talaabadan qaadaba call noqotaya dadku igu salaamayeenba war sidee ku tagtay war horta salaanta iga qaad ma garateen marka videoga ma insha Allah isku day doona si waadix xasan horeban igu sheegay intaan iga qanciyo waxa igu tilmaamteen Faaraxow derbi baa jira ma walaaleen fara badan ma ciyaal parachute baa taaliga iri waa maya feerihii lagu soo booday milihi waxaadana lagu sheegay ma guur beena ma garatay gabar yaro say wallahi ya kala tuurtay waxa lagu iri ma lagu korsaday malaha dhararkee ka dhaqaaqeen baa u malayn xanaanadii baa iga dhigteen sharaftii baa iga safaadeen may lima korsan guur beenana kuma iman parachute ma noqon qof kaliya waan ka waayay walaalkay Faaraxow walaalahayga i daawanaya qadarkii Ilaahay igala hadlayba ma garatay maar kaliya ma maqal qof igala warda Ilaahay baa ku keenay ma garatay oo Ilaahay dartii ku imidee waxa la isku focus gareynay dhagaha ligaga qaadayay sabab uun ma garateen sabab waarun oo Ilaahay de waxyi kuguma soo dagayo nabi minhin laakiin sababta waxa ka weyn kun fayakun samada ka timid ma garatay taa intaan ku baraarugsanaano waa muhiim baan iga leeyahay oo horta koow waa qadar Ilaahay talabaad kulay gadaal baa ka fahmi doontiin intaan anigu 10 faranna E4 ayay Faransiisku yiraahdaan ma garanayo waxa Soomaali lagu oran amba dadaal ma keenine Maraykanku isaga anoo furaashkayga yaraayo aqalkii hooyaday iska dhex jeefa iga soo dhex qaato halkan keenay taana waxa ku tusaysaa Ilaahay waa ka niga iri hadda adduunyo ka caymadido focuskaaga saarino aad isku mashquulin adduunyadu iyada ku daba caymaday ma garateen hadalka waa muhiim oo gadaal ba ka fahmi doontiin sababtan halkan i keentay inta anigu 10 farna u dadaalinay wax Ilaahay oo sixni ii soo dul saaray ee tahay marka waa sababta koowaad ugu weyn horta waa taasi haddaba hoos u sii dhaadhacno waa tan iga dhex guuxaysay Soomaaliya waan is garanaynaaye program baa jira IVLP la iraahdo oo safaarad kasto Maraykana ee u soo bandhigto dalkay ku taalo IVLP haddaan si sharaxa waxa weeyaan International Visitor Ingiriiskana horta waan isku yara dadaya Faarax way gaar muuqata ma 40 joogo International Visitor Leadership Program waan dhigay ma ayaa la iraahdaa IVLP marka safaaraddu maaha waxa weeyaan wasaaradda arimaha dibadda ee dalkan Maraykanka State Department ka la iraahdo iyo safaaradda ilayaka xukuumay wasaaradda arimaha dibadda xukunta safaaradda dalkaaga degan program ay isla dhigaan weeyaano IVLP la iraahdo programo fara badan bay safaaraduhu bixiyaan laakiin kani waxa weeyaan programka kaliya State Department ka amba dalka Maraykanka ma oran karayaayo deelan wasaaraddaasi waa dalka matalaysay ee qofka ama shakhsiga ee iyadu dooranayso programkan waa programka kaliya dawladda Maraykanku adigu ay weydiisanayna iyadu ay ku weydiisanayso hada programku muxuu yahay waa program ilaa iyo ku dhawaad $20,000 shakhsigii la gelinayo lacag gaaraysa sida dalkan Maraykanka lagu keeno stateyal kala duwan lagu geeyo oo dad isku shaqo atihiin oo dalkan Maraykanka degan oo Maraykana experience isku weedaarsatiin de khibradihiina isweedaarsatiin marka horta programka IVLP waxaan u maleynayaa inta si fiican ila fahamteen
waa program aad u weyn oo programmada bixiyaan de safaaraddu ama state departmentku waa programkooga ugu weyn sidoo de ambassadorkii amba safiirkii Mareykanka u fadhiyay dalkeena Djibouti uu noogu macneeyay de su'aasha ugu weyn ee la isweydiinay waxa weeyaan xeeraanka yaraa kartoonkii ka soo dulkacay ee cagaha boorka ku lahaa ee Hebsworth skiini ma garateen aan ila kaftame sidee Mareykanku uu iri this boy is our to come to the Moroccan sidoo yiri weeyaan su'aasha isweydiinaysiin ma garatay ta koowaad waxa weeyaan hooyada ay daawanaysa imika kameradan ka dambaysa faaraxo si fiican ii dhageyso gabadha walaashayga ee ma garatay qoosh garaacaysa imika ay daawanaysa ee la inkaar qabay maanta uu sheegaya shoodhahayga taqsiinsanee kolay fadhiya amba Soomaaliland ama Bujinis Djibouti waa ininka dartiin marka koowaad baan oran karaya de ilaahay waanigi ku bilaabay boo haddaan dhan dhigo oo Umar Umreen ka dhigay ma garateen anigu mar waliba anigu celceliyaa min airportki markaan ka soo duulayay min video kasta min success kasta oo ilaahay waa ilaahay baa jecel inta la mahad celiye ma garateen markasto wax uu dhaqaaqo ee daraadin wax ugu hirgalo waa inta la mahad celiye weeyaan marka walaashayay qooshka iska tirtir adigan ku jeedaa ma garatay adiga ii suurta galiyay waayo the leadership baba ka dhex dareemaysiin oo IVLP dadka saameyn ku leh dalka ee ka soo dhex qaadanayaan bay raadsadaan sidee experience loo kala weedaarsado waa markii ugu horeysay programkan IVLP gu sii kala baxayo mowduuca kala duwan buu sii kala baxaa waa markii ugu horeysay social media ee mowduuca ka dhigteen markii koowaadna ilaahay wuxuu nasiib ii siiyay intee aniga isoo doortaan sidaan uga qayb qaata programkan marka dimi suurta gali leheen haddaan xeeraankii 2 sano ka hor cagaha boorka lahaayay xaafadaha miiska jaadka dul fadhiyay hadda haan lahaa mi suurta gali leheen marka koowaad waa mid ininka anigu mahad celinayo oo saameyntan Mareykanka uu igu yeeray waatu ininku ka dambeyseen talabaad waxa weeyaan 2 sano ka hor bay isoo qaraaceen safaaraddu haddaba haddaan iga dhaco gabadh hibaaq la iraahdo walaashay halkan aadan uga salaamayo waa state departmentku wasaaradda arrimaha dibaddu wax kama garanaysa Afrika marka waa Afrika waxay ka soo dhax qaadinay adduunka oo dhan bay IVLP-gu ee ka soo qaataan imika Afrika anaka naxuseenisay oo kala soo dhax baxayeen wax nagama garanayaan marka safaaradda weydiiyaan intay dad u soo salad gareeyaan gabadh walaashay oo hibaaq oo halkan aadan uga salaamayo safaaradda ka shaqeysa ayaa 2 sano ka hor anigoo hurdo nolosha ka yaabano 2 cisho YouTube-ki wax soo dhigan oo yaaban isoo qaraacday walibana waa Soomaaliyeed walaashay halkan aan kala kaftame luqadeeda laakiin isdubneedba way ka muuqatay intee meel Mareykan ay ka shaqeyso hello Umar biga tiri is the Safari of America anu waan qalaaban safaaradda ay la soo hadashay waan kala booday hurdadii aaway is me is Umar is tomorrow macna bari ligeenayo marka bay igu macnaysay IVLP-ga intee jeclaatay intee iga qayb geliyaan laguma xaqiijin inta lagu doortay ee profile-kaaga wali weydiisanayay Afrikaanow ana kuna dabeecadahay kala waa intaan yeelano haddaan Afrikaan nahay wali weydiisanay ma garatay profile-kaaga manu u diri karnaa state department-ka sidee ku soo baaraan ila 20,000 lacag yar maaha walaalaha iyo ma garateen shakhsigan la gelinayo intay wax ka ogaadaan bay rabaan Mareykanku manu ogolaanaysa markaaba iri ilaa cidida kaga qabo ilaa tinta walaal u dir ma garatay oo kartoonkan iga durkiciya marka walaashay way dirtay mahad celinta labaadna waa safaaradda safaaraddeena Mareykanka ee Djibouti noogu taala oo igu kalsoonaato ii soo bandhigtay state department-ka walaashay halkan aan ka salaamayo safiirka magaciisa waan iloobay ma garatay Djibouti u fadhiyo ii aamino confiance ii yeeshay waa 2 sano ka hor maalmahan aan soo bixi doono in yar ka hor baa faaraxo ma garatay the same call la soo halaya hello congratulations is your time together to the America ma kartay sadba mise bas waa loo raacaya ma ila ciyaaraysa yaabkii baa iga dhamaaday ma garatay diyaar ma ahayn haddaba hadalladeeda si fiican asxaabay la socotiin bilowgii waan iga nigu bilaabay ilaahay waxba lama aha kun fayakuntiisa inta adoo maanta kartoon yar iska dul fadhiyo bahaash cunaya beritoole Mareykan laga soo dejiyo muddo yaro gaaban dhaxdeeda dadkii igu dhadhawaamay ogeen wallahi asxaabay waa congratulations maana Ingiriis aan fahmeyntii to the life to the America to the tomorrow the shandan amshandadaadii diyaarso
yaabkii baa iga dhammaaday marka waa ilaahay awoodiisa halkaa ku arkaysaa intee adigoo warba u ahayn huna waan fiidiyoyadayda iska diyaarsanayay wallaahi oo bilaahi daa baan igu dhaaranayn kasoo dhaartu ay fiicneen marnaba isma leheen maanta ayuu faarax waa dadka halkan sawiradoodan ka daawan jiray ma garatay in kaar qabe uu nastay oran jiray ayaa kamaradka ka duubi doono maraykan baa iska dhaxlugeyn isma leheen ma garateen waa awoodda ilaahay baa halkaa ku arki kartaa oo imika fahmisiinde markii aan lahaa waxa ugu weynay halkan i keenay u sababa waa kun fayakunta ilaahay haddaba asxaabay kartoonkii baa laga soo dulkiciyey oo halkan bay i keeneen hi good morning diba durdaba igu bilaamatay yaabkii baa iga dhammaaday programkan haddaba haddaan dib inigu soo yaro noqdo si degdega nii dul caymado wanigii hore nigu soo macnay intee $20,000 in gaaraysa intaa qofkii la gelinayo haddaba 20,000 maxaa ku dhex jira lacagnimo laguma kaasino lacagnimo waxay nagu siiyeen kaar cuntadaadii iyo waxaad ku noolaani sida cuntanimo aad kaga cuni rabtid inta ku isticmaashid hotelkaagi waa 5 stars waxaan igala hadlayo qoorta igu daalisay kolba sida uu eegayo hotel weyn bay nadijiyeen transport keeni waa limousine gaari inta la eg baa lagu ka wadwadaya waa 4 state waxay nageeyeen waxa kamid ah imika hadaan ni yara taabto waa Los Angeles waa Miami waxa weeyaan Washington oo tii ugu horeysay state-kii ugu horeysay aanu ku soo degnay iyo Milwaukee de halkaana lacag way ku jirtaayo state-ka timaadidba hotelkaagi diyaaradaadii 20 faran baa ugu yaraanu Djibouti kama soo qaadan oo ma isticmaalin taa waxay ku tusaysaa intee Mareykanku lacag ku gelinayaan sidee khibradaadan waxay rabaan social media oo mawduuciina ahaa sida Afrika looga isticmaalaa iyo sida Mareykanka halkan u isticmaalaan leesweydaarsada experience-ka Mareykanku wuxuu rabaa inta khibrad de ma garatay la isweydaarsado la ogaado Afrikaan kan yare madmadow sidee u isticmaalaan ana kana ee noo macnayaan cadaanka yare cadcad sidee u isticmaalaan so waxaabay de lacagtoodii u horeen sidee experience lagaaga beersado waa isa wala ogtihiinba lacag laguma goyn karo khibradu qofku leeyahay amba waxa maskaxdiisa ku dhex jira taabay fahmeen dadkana meetingo ayay dhabarka nagaga jabiyeen 8 subaxnimo meetingan bilowno ilaa iyo maghribku halkan 8 habeenimo dhacaaye Umar is to meeting to the Mesha. Hey, I don't know what you're is meeting is finished. Is meeting together. Meeting labaad ma garateen. Waraan galaygu saxsan yahay ma? Dahab. Dadka meetingada aan la gelinay asxaabay waa dad dalkan Mareykanka waaweyn oo de shaqadeenan soo dhaxgalaya. Waxaanu la kulanay Motion Picture Association. waa ragga dhan waxa lagu leeyahay filimaantan imika ambisi action una ka daawano Mareykanku way soo saaraan normiyada u sameeyay xeerarka intee wax ka boodin amba de qaladka ka ilaaliya presidentka ninka ku xiga ayaana la fariisanayo aanu la wadaagnay hay'ado Mareykana oo de shaqadan social media ka shaqeeya ragii TikTok waa maqashay maamulaynta TikTok halkan mamnuucayaan ragii ku shaqo lahaayo Congress-ka fadhiya dawladdiina way noogayeen baadaya lagu kulansiinayo kaaga waramaya social media xeerarka sida halkan dalkan Mareykanka ay ugu sameeyaan adu waxbay hadal nagu daaline dad waaweyn bay nala kulansiiyeen aan noqdaan association-yaal amba dad dawladda Mareykanka ka tirsan bas sida la isku weedaarsado information-ada asxaabay haddaba meeting-gadan kuma koobneen program-ku meelo alla way imika ila fahmi doontiin marka aniga laha ilaahay waxba lama aha nacam awoodda ilaahay mar labaad baa aanu kama daalo inta awoodda ilaahay dadka aan jecel yahay inka intaan la qaybsaday huno xeeraanka kartoonka dul fadhiyay maalinna ismu orande Hollywood baa dhex tagi doonta maalinna ismu oran Miami Beach ma garatay ayaa ma garatay siyaasadaban ku koray iyo badii Iran Djibouti baa ila fahmiyay Miami Beach baa tagi doonta ismu leheen haddaba programkana waxa raacsanaa inta Mareykanka ilaa anagu waxaan u garanaa yo what the it's never like to be your baskoolado Mareykanku baaskoolada ma ahuun inta ay naga dhaadhicinayeen oo noo macneynayeen inta meelo lagu dalxiisana ee jirteen tustusayeen marka meelo far badan bay noo dalxiis geeyeen faaraxow ee kamid tahay Hollywood waxaan dhex tagay meesha Oscar-ka lagu bixiyo inkastoo de asxaabay fiidiyoyada soo socda ku arki doontiin waxaan dhex tagay waxa la yiraahdaa Hollywood Walk of Fame meesha ma garatay Allah Musa Maxamed starsiyaasha far badan ee magacdaha starada waa meelada TikTok-una ka daawan jiray kartoonki to Hollywood waa wali marka dawaa awoodii ilaahay asxaabay way la socotiin baan u maleynaya programka taasina way ku dhex jirtay haddaan ni soo kooba asxaabay kulay horeba oo nigu sii mahad celiyahay haddaan saddex u kala saaro mahad celinta koo waa ilaahay oo diwaaniga ku bilaabay heedbood ii rumeeyay
oo ii qorsheeyay ahayd intaan dhowr bil ka hor anuu ogeyn bishii ku xigtay inuu Maraykan i keeno oo dee alxamdulilah baan leeyahay ma garatay marka koowaad mar labaad qooshka walaashayda qaraacaysa farax waa ka qoslaye iyo saaxiibkayga jaadka sii tufaya oo dee views ka yare ay siisiin iyo like-ta tustay safaaradaydii Djibouti ee Maraykanka safaaradii Maraykanka ee Djibouti noogu dhaxtaalay intaan qof hal abuur leh intaan yahay oo ininkaan nii mahad celinayo dee Maraykan maan joogayo thank you very much my sister my mother my father my brother and leeyahay ta saddexaadna safaaradda Maraykanka aan isku daya dee Maraykan aan ku yiraahday the embassy of the America ma garatay oo dee igu kalsoonaato qui ont eu confiance en moi oo day u soo bandhigtay State Department-kana aad baan halkan ugu mahad celinayaa haddaan dhowr qodob aan ku soo xiro videogan oo waana ilaan waanadu waa waxa ugu muhiimsan ee la isweydaarsado dad badan oo asxaabta iyo farax waasaan ku sheegay talaabadan qaada assalaamu calaykum jirin wallahi baan kugu dhaarnayay war sidee ku tagtay weeyaan waa dadkii ii dhadhawaa waa dad aan garanayno waa taageerooyinkii war sidee u tagtay marka walaalahayo dee kulay in badan baan taa ku celceliyay waxa weeyaan xariga ilaahay oo la haysto adduunyo laga jeesado eeg dadaalku waa la iman kartaa waa raadsan kartaa visa waa raadsan kartaa si aad ku timaadid dalkan Maraykanka laakiin waa macna aanu ilownay anakana ma hadaraadin shaydaanka cadowgeenu ugu talagalay intuu na ilowsiyo inta wax kasta ilaahay ka imanayso so aan dadaalno baaqigana ilaahay aan deeno example hadaan anigu isku soo qaado de waan dadaalay oo mobile baan ku bilaabay ma garateen waa sanado ka hor anigu waxa halkan kamarad kol baan ka dulqeylinayo ilaahay uu ogaa sanado kadib intaan Hollywood aan noqdo youtuberkii ugu horeeyay ee vlog niga soo duuba ويلا سعودين با أملانا تانا وإنتين براروجسو أنو أغانو شايدان أعوذ بالله شدال جيم أورونو أنو دادالو فيزا نو ديغانو باقي غني إله ورد بوستا الله ديغا إلهي ديمن با أرديغان كرتا وقوري كرتا لاتر يا الله هدي خير إله داي مرايكنكو دي إيرومي هدي خير إله نو أفر من مدو باسكولات هالكا إيغا ساري دونانو أدوغو يا أوكتا إلهي با وحكستين نيغو أوك إلهي يو إيغا قبو مرايكنكو جنة دي ماها مقارتين أنو وانيغا ندحلو لغانا يا ده مسكين بليهين حيران بليهين سيديني ما قرتي وضد الكوجي وندستي أنا كوبا وندستان كراينا تانا وموضوع كلون نقصي فتيه مايو هرتي إنتان إلهي أنو أول ديبنا أريكينا وتا قضبك ugu muhiimsan galaha le asxaabay de waana nii mahad celiyay hadaan igu soo koobidii horta way yara badatay maha كل واحد سويدين سين محوم مرايكن كوحوج صدوبي لا يهي إلى وجهي سند كذا ندير أنا كون كدرجني جبوت بو ونوجو صدوبي جري مرايكن كوحك أرك دونين أصحابي أنا يمكن وحن قرش استادين تان كو فيديو يدي ده أد أنا فربط صدا مركليونس كصدوبي جليو فيديو يدا صوص عدا وحكم ده هوليوود كان يجلا هلا وحكم ده ميامي بيتش وحكم ده يو حال كان إمي كان كسوجن يهو مينيسوتا قبل مينيسوتا أما مينيابوليس ده مرايكن كيف ضد كيني سومالي ده ككلابتين إنت ميلودا نيسو تريين فيديوهال إن بعاديين بنيسو دوو كاميرا ميكا إن ولاكي فرح ويحيو أيك ولا بوحان إمك فيديو كمان شعلاده هادين تان يقول ده فرون يقول معناه سبب تانو إمدي ده سونكي نجاشدا مرايكن خود والله إسلام كوفيسا أذا ترون يا أنا نيجي درجين دونه إيشان كوهاينو إن شاء الله مقالة صوص عذاب سبسكرايبر كان نيجي يلوبين توم بيا ما عبينه وانا جاي لايم كفتها يا لايك ده رومي سبان ده فرح لايك سنتها ما قرأتين إن شاء الله دو بالله التوفيق بيس